سودو ولا مقعنا قبله ولا ودو مقعنا منا مناي ولا waxaan doonaynaa iga warantid qisadii kugu la yaab badnaada intaad wiil la haysaa oo ka soo martay wala la qisanku iska farbadinta muhiimka aan soo qaadanaya inaan baan isbaranay bari xalfad baan isku baranay inankii xalfad markaan isku baranay ayaaba wax dhacday waxaan ku wari habeenkii marka laba habeen wada hadlaynay ayaa habeenkii saddexaad ku wala waan tagay buuramaan qabanay wareegaya way biigu aan isku nimaadno aynu dasiita shana way baan ku waan isku nimi dadeenka markaan isku nimaado horta waan iska tagay buuramaan qabtay 9 bilood baan buurama ku maqnaa 9 bilood badee si fiican baa warshaksan daacad baan isku ahayn anoo 9 bilood jooga buurame ayuu habeenkii dambe la saaday wuxuu ugu dhahay in waxaan doonaynaa ku soo doonaan ku guursado way baan ku wari burca kale biigu dhinta shanay way baan ku burca yimi burca markaa yimi ayaa biigu wari waxaan doonaynaa ku guursado waa sax baan ku wari wuxuu ugu wari waxaan doonaynaa kula tago dadka ku dhahay la tagine reerkayga si sharaf leh iga soo doon dadka wuxuu ugu wari madaxayo waxaan kugu soo doonto oo dhaqaalada mu haysan wiilko وصح بنكوري أنا بروح صفر سمينة العقد بنكون كني العقد هاي وصل دونا ويبيقولي أنا والله ويلك سيد بحد دافع دوتش على والله حقيقة وده نفس ده هو هي تتواي بنكوري أنا العقد كني العقد هاي وصل دونا ويبيقولي واسكتي حافظة قبل إسلاء صبحي بقى الموبايل ايفون هيستي موبايل ايفون كهابان قاداي وسو يبيي 800 دولار baa laga siistay waxaan ku lacagta qaado oo igu soo doono way ibi goray wiilkii habeenkii halkii markaan ka iimaano maalmo haysta maarta moolkii gooniga iibiyaba habeenkii bartaanka ka yimid aan isku ogaan soo doono ayaabaan waybayna ku meel ka baxayba 7 cishan sugay lambarkiisa lambar kale ka waca markii iga qabto codkayga garto ayuu jaraa waan yaabay lacagta kama warwareeyay wajiga ka qaalisan isagii baan ka warwareeyaba kadib markaan mara 8 cisho maqnaa habeenkii 9aad ayaan hambariyadiisa Facebook ku arkaano inaan Facebook ka galay soo markaa inaan kala guursaday inaan kala ugu mehersaday ba lacagtii aan siiyay anigu ku igu soo doona reerkayga ugu kale ayaabaan ku arkay Facebook hambariyadiisa waan yaabay horta waan u hambaliyay markii maskaxdayda uu ka bixi waayay inaan kala weydiiyo waxaan ku war maxaa jira wuxuu u inaan taas guursaday جوان يابا لعقتي تلفكاga aad ku gaday ha lacagtan moolkiga anigu ku iibiyay aan ku reerkayga iga soo doono adigu lacag ma haysid reerkayga igu kaalay oo dashir sarf lay soo doono ayaa buu gabadh kale ku mehersaday ba maskaxdeedu ka bixi weyday anigu lacagta kama warwareen laakiin jacaylkiisii de isaga aanu qabay xad dhaafka ha iyo dhaawac inta leegu ii geystay dambe wala duulka muuqaalkan daawanayo halkan xad fariino marinaysa wala horta de barnaamijyada uu isticmaalo wadayna dhalinyarada uu daawanaya marka waxaan leeyahay ma jeclaan inaan qisadii horta soo dhex martay aan ka sheekeeyay anu lacagteedii imika moodin inaan lacagteedii doonaye laakiin jacaylkaadi ugu abartay gaga baxday ayaan baan wallahi adkeysan waayay de maxaan ku raayay xanuunkiisii aan la imika la daala dhacaya wala magacaan gablo wala magacayga Muxtaar baa la dhahdaa Muxtaar wax doonayna la walaagtay qisadii kugu la yaab badnaan inta haween la xasaawisay aad kala kulanto uu noo qisada walaalmadiga deesan markaan soo xasuusto marna waan marna waan qoslaa marna waan marba si baan noqdaa joonadeyda iskala beddeliyay jooyadeyda waxaan qisadaas horta waxay ahayd niyo horta kulli dumarku isku wajiyay badin saad aragtid xiriir hadda la sameeysan kulli wajiyay badan baad kala kulmaysa gabadh xiriir leh ama gabadh reer leh oo masuulo u badle ayaanu xiriir wada wadaagnay ka bacdi gabadh la qabo ka bacdi habeenada kamid ah ayaa kulankaygu wuxuu noqday guri waxay u tir guriga walaashay baale ama deese in family-gayga oo kale soo gurigan iyada ka xaqlaayeen intii iyada ka mulkiila ninkooduna waa iska qaadalo waa ragaas ka marxaladaysan kabadhadii waxa hayo habeenka xilliyada dambe soo hadlaa marka adu ma ogtiin gabadh la qabo ma ogi dooci dareentoona kama hayo balse laakiin de way sheekaysaa jacayl bay ugu aburto markaas dhaban jacayl hasa ahaatee adigu inantii habeenada kamid ah guriga iskaga ximina waqtigii aan de ka kala tagi jirnay guriga ayaa adigu sheekadii baan ugu daba dheeraatay ama xiriirkii ama de qosolkii iyo farxadii dhex martay deetana adigu waqti jaaniskii baan ugu dheeraaday adigu wax iska gaadhay xilliyo dambe dabadeetana albaabka la soo garaacay inantii ila fadhiday ama farxadii ama de qosolkii wajigeeda ka muuqday inantii adigu way isbedesho gabgab iyo alla wanankaygi iyo ay hadalaan meesha ka filaneen baa yimi dabadeetana waxay u tiraado inantii si aan ku qariyo ama si aan ku badbaadiyaba waan ku badbaadinaya qolkii fadhigay geyso marakana ayari saa si foor soo marakana aad waxa ku jira ina yaro ay dhashay oo ninkan aabooyay dabadeetana way marakanaacadii bay qaaday inaan keeraabay ka qaaday inaan keeraabay qolkii soo dhigtay marakanaacadii bay saartay anigi أنا هوست كجلاي طب تنين كجوري جلها بجوري صاقلا مركو صامر ديبور أنا كرامي وقال كفردي هردادو وصاص عضي أنا مركها وجريرية مركنا عضو سوا بدي بيوري وارخيده قف كوي نمجي ميسان كلا جر كلام بس صورة فردي نكو صاقي كبيجيس بتشوقي تشاقي فرنا ولا قاتي كرمه أنتوا شخص سنوان عرّي الباب مركن كبودو كبر ديجا صفر تمركورة لو مش نحل يصير هو ولا جمسر جارو بس لكن ويك قرنا يدين وياركو حاجك
adigu waan ka cararo ilaahay way iga badbaadiyay isagana way soo daba cararay kulli isagoo daba ordiyay igu wardambeysay in meeshu iga hadhayna ma xasuusto intaas ayadu qisaday waayna sheekadii guri bay nacsiiseen oo ku xilay imka gidaarkaasan kaga kalsoonay fiilada weyn ee inaan igu tiraahdo igu kaala magacaygu maxamed jaacno kana magac dheer Abaan Xikmad Abaan Xikmad waxaan ku weydiinayaa qisadii kugu la yaab badnayd inta haweenlaha saawisay ka soo martaa horta wallahi qiso sidaa sameeyeen laakiin qiso xanuun badan ugu dhalisay bay ahayd waxaan ahayd qiso kidiisa alaanadana qofkii aan qisada aanu qaaday ma garanayo cidiyaha markaana ma garanayn ismana lahayn taasoo kala ku dhacaysa waxa dhacday anoo waxa jacaylka la dhaho aan qadarin xushmayn aqoon wuxuu yahay ayaan maalmaha kamida 2018 bishii 8 ayaan magaalada la dhaho Qoryaal cidi garanaysa ayaan gaari duhur iyadoo wada ku barwaaqay yahay ayaan damacayna burco aado wadada laamiga ayaan soo lugayay marka waxaan biriishka Qoryaale gaari baa igu soo maray basa gaarigii waan joojiyay gaarigii baan soo raacay soo qaaday gaariga dhixdiisa waxaan isku soo baranay marka inaan reer Puntland oo ka timi magaalada Garowe inaan tahay inaan furfuran magaceedu waxay igu sheegtay nimco markaas inantii sidii ay haasaawii iyo sheekadeedii macaana iyo qosolka igu qoslisay aan soo islaawo waxaan xasuustay gaariga controlka burco taagan baan xasuustay ma ku hanbaabare intii waxaan soo gaadhu dhaqaaqay tanaynaantii baan walaal nambarkaaga ii sheego tanaynaantii iyadu hore waxay igu soo sheegtay inay balaaso ku dageyso nambar barakaad ay qortay markaan nasamteeshan aad ugu hadli jiray nambarkii barakaad ay qortay inta aan ka caaraysan gaariga balaasin iga degtay gurigii baan tagay anoo inantii ka fikiraay ayaan seexda waxaan ku riyooday anagu inantii iskuursanay nolol wanaagsan wada yeelanay isla doorkiiba casarkii waan baraarugay waan booday wixii aan ku riyoonayo way nambarkeedina waan waayay tabtii baan inaan doo jeclaanay ana dama hayo ilama soo xidhiidhin war dambe kama hayo daana nambar igama qoraan marka inantii qisadii igu dhacday waxaan ka shaqeeyay maanso la dhaho baadi doon jacayl marka waxay ku bilaabaysaa maanso sidatan bini aadam koodhami bulshada inteed badan jacayl ay sheegeen boodhari inuu dilay qays beerka kaga dhacay leelana bogeed digay ayaan been ka dhigayo balaf baanu haysto runta barashadeeday bal iga hor joogtay soo bari dhaweydoon Qoryaalo barwaaqa inta roobku biyo dhigay biyo darafka joogan tooguna burqanayaan baliyadu u buuxaan iyo wali baraago dhulka baadku jiifo ubax midaba badan leh dhirta baarka kaga yaal oo bulshada ku nool iyo beelaha halka dega kii boqor riyaal iyo kay laba irmaan tahay burcad ay ku dhaashtaan oo sida biyaha ceel balada shacaana lagu qabo banaanada warsoo bishii hore duurmaan boqolna burcaasman marka biyo ceelka lagu miceliyo ceelka waa la iska saydhiya burco aasmaan oran buundada kolkaan imi dhanka bariye laamiga guux baa baxayo aan bidaaminayay bas caado weeyso iguma soo bixin oo baljoogso maan oran oo bareega muu qaban oo balfuuli ma oran bismillaah intaan dhibaa bacad iyo faraha hore baabuurki saaro deymada balaasho baarbaaray booskiyo kursiga maldegila bilan yaro qurxoon oo cambuhu bislaadiyo genyadii barooqiyo baal gore la moodaan baasheeda tagayo bariidiya salaan iyo kaftankii badnaa iyo barashada dabadeed bilantii isfahan oo tiro bashasho baashalka sheekada hadba baalo rogaysa wana kuula inaan timarkii waan isfahan koodhe deetana waxaan baraarugayaa anagoo controlka marayna controlkii burco baabuurku maraya haasaw badgoaya ana hadaan baraarugay iyana balaasay ku dagaysa hal birqsi dabadeed hadal baan ku boobo bilanay walaalay bal telefoonkaaga ii sheeg balami macaanay barteebeen ku kulana may booqanayeen bilantii waxay tiri bal moolkaaga ii dhiib barakaad bay geliso balaasaan maray marka intii nambarkii barakaad ay qoraysay gaadhi waxaan wadayno aniga la xintamaayo ay markii balaasa soo gaaray deetana bilantii waxay tiri iyadoo inankii gaadhiga la hadlaysa bartan baan ku dagayaa balbareega ii qabo anna bay igu tiri boqorkii uu maani qorin bureeqadan qalbigayga bilatay bacda casar baan baaray moolkay bilantii ka waayo baadidoonka caashaqa waxaan ahay basteeyo waxaan ahay bukaan socod baadhaya ruux maqan baafinaya bilanta igu beertay lahashada bal hadaba bulshooy bini aadamow jacayl waa below uu baacsado uu beerlole inuu jiro jacayl hadda waan bartay badbaadiyo waxaan kaga bogsaday soo bandhiga marka inantii waxaan leeyahay walaalay inantii reer Garowe haddii askarinaysid walaal nimco oo aad muuqaalkaas ku soo gaaro nambarkayga soo qabo walaal sidii baan ku doonayaa maalinkii gaadhiga ila soo xidhiid